baasaboorka waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horeeya ee dawladda u qabato muwaadiniinteeda. baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee ay qabto bulshada. haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaan kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad, ardayda xilliyada waxbarasho ka qayb gali lahaa ee weli xaniban iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka waxa uuna ka warramayaa sida ay u taabatay. sida 2 bilood ma sheegi karo laakiin shawiil aan ilmaadeerna muddo 15 cisho camal dhaawac oo yaala isbitaalka Daarushifa baasaboorkina waa sawirka uu galay waxa lagu geeyay migration kan tagay goobta oo dhaawac ku yahay oo lagu xanaaneynayo ku yaala isbitaal Daarushifa la yiraahdo. baasaboorka markii waa la daabicin waayay waa la waayay wiilasha dhan waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka. maamulkan raadiyay inaan arko ninka ugu sareeyo migration-ka Colonel Kofi ay suurageli weysay inaan helo wiilna wiilka uu yaala isbitaalka Daarushifa aaduna tacbaan yahay dhabarka ayaa bir uga jirta. inkastoo aanan xaqiijin karin haddana dadka qaar aanu la hadalna waxay noo sheegeen inay jiraan dad xanuunsanaa oo daryeel caafimaad dibadda loogu qaadi lahaa oo ay u suurageli weysay baasaboorka xaniban awgii oo u geeriyooday. Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. waxa uu ka warramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay. baasaboorka waxaan u raadinayay hooyadii xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibadiisa aan rabay inaan u kaxeeyo marka Falastiin caqabado aad u badan baan kala kulnay ilaa haddeerna dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kulli ilaa haddeerna waxaan leeyahay marka ma garan karna sababta dad badan oo iyana u dhiban baasaboorka wallahi ma leeshin sababta la xanibay ku dhawaad bil iyo ku dhawaad waxaan leeyahay December ilaa haddeer waxaan leeyahay baasaboorkii January lama dhamaatay ilaa haddeer February lagu jiraa marka ilaa haddeer waxaan la malaha resultka dowladda. xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay. ma khatar ugu jiraa wax lagu qaado daan la helin inkaas khatar ugu jiraa isbitaalku waxay ugu dhaheen paralysis oo noqonaa amba xaaladiisa si kale isku bedeli kartaa ay ugu dhaheen shala mar aantan. Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la'aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la'dahay iyo weliba duruufo ka duwanba. dabcan way jiraan dad badan baa xaniban marka way jiraan baasaboorka waa loo wada xaniban dadka siyaabo kala duwan bay maadaama ay tahay jinsiyadda dalkooda iyo dareemi karaysaa ugarta. xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuunba leh in dadka Soomaaliyeed ay la soo diristo xaaladan oo kale wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay ka sii badan dareemayaan. in ay dad badan iska cabanaa ku arkay goobta migration-ka dhowr maalin hadda migration-ka tagay waa xiran yahay waa waaye qof aan qaabilo marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaano si walba wuxuu raadinaya haddii aan la qof kalo maanta qof wadan arki karay waa dareemi kartaa duruufta jirto marka arrintaas arrin xanuun badan ay ku noqotay maanta baasaboorka saameynta ummadda Soomaaliyeed. wallahi Falastiin walaalay waa arrin xanuun badan sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqo leh iyo cidda lagu ogaa in la weydiiyay ku habboon tahay laakiin waa arrin aad iyo xanuujiyay mararka qaar waa ku xanuunsadaa si aan u fasira ma aqaan waayo shaygan aanay kama shaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkadaha loola heshiiyo laakiin xanuun weyn ayaan dareemay maalmaha wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay. samaynta baasaboorka Soomaaliga ayaa la sheegay inuu xaniban yahay khilaaf ka dhaxeeya shirkadii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda. waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas'uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda balse kama aanu jawaabin dalabkeenii wareysi ee arrintan la xiriiray.